wasiiru dawlaha wasaaradda qorsheynta ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil ayaa maanta ka qayb galay shir lagaga hadlayay isla markaasina lagu soo bandhigayo qorshaha horumarineed ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhigtay wasaaradda qorsheynta ee 2012 ilaa 2016 iyo ilaa qorshe goboleedka gobolka Saaxil 2014 ilaa 2016 kaasi oo lagu soo bandhigay hotel Barwaaqo ee magaalada Berbera munaasabadaasi oo ay ka soo qayb galeen وسدوياشا هيدها لامها دولة يحمل قسم مدحها هيدها لامها دولة hoose magaalooyinka Berbera iyo Sheekh iyo dadka loo marti sharafa ayaa ugu horeyn hadalada ay ka soo jeedeen munaasabadaasi wasiiru dawlaha wasaaradda qorsheynta qaranka ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Aadan Galaal iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed ayaa labadooduba waxa ay ka warameen shirkaasi iyo muhiimadda uu leeyahay guud ahaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Saaxil iyagoo sheegay in horumarinta degmooyinka iyo gobolada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo la sugayo inay noqoto horumarinta qorsheynta qaranka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland gobolada wixii ka yimaado la sugayo yumba dhisa qorshaha guud ee National Development Plan wixii uu qabsoomay 5 sanadood gobol walba uu soo bandhigay gobolka Saaxil gaar ahaan insha Allah 5 sanadood dambe soo socda hadii Allah ilaahdana inta ayaan ka badan ayaan jecelahay inay wadanku soo kordhaan munaasabadaasi sidoo kalena hadal uu ka soo jeediyay suduwaha wasaaradda qorsheynta qaranka ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdulla Ismaaciil Yaasiin ayaa waxa uu ka akhriyay waxqabadka hay'adaha laamaha dawladda ee gobolka Saaxil ee jaangooyada 3 bilood ee sanadkan ee 2016 isagoo oo sheegay isla markaasina guud ahaanba dul maray waxqabadka hay'adaha laamaha dawladda ee ka howlgala guud ahaanba gobolka Saaxil waxyaabihii nooga qabsoomay qorshayaasheena heer gobol iyo qorshihii guud ee qaranka waxa kale oo iyaduna aan u maleynay inaan aad isula fahanay waxa la yiraahdo Regional Development Forum-ka oo inoo sharaxay sahal oo guddi horumarinta maxay ahaatay oo ka kooban isduwayaasha iyo maayarada degmooyinka isla markaana gudoomiye uu yahay barasaabku guddidaas oo aad muhiim u ah iyo roolkeeda munaasabadaasi sidoo kale hadal waxa ka soo jeediyay xubno kale oo ka socday wasaaradda qorsheynta oo ka mid yahay agaasimaha horumarinta ee wasaaradda qorsheynta Mustafa Maxamed Farax oo isaguna guud ahaanba ka waramay wasaaradda qorsheynta iyo jaangooyada qorshaha horumarineed ee guud ahaanba dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee 5 sanadood ee la soo dhaafay sidoo kalena waxa ay halkaasi hadal ka soo jeediyay xubno ka socday dawladaha hoose ee magaalada Berbera iyo Sheekh oo soo bandhigay qorshahooda waxqabad ee 3 bilood ee u horeeyay ee sanadkan Cabdisalaam Xariish Cusmaan TV-ga qaranka Soomaaliland Berbera